kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warbixino gaar ah oo aanu ku eegi doono maanta wararkii ugu dambeeyay ee caalamka laga qoray waxaanu ku faahfaahin doonaa inta aanu ku guda jirno warbixinadeena kooban maxkamad ayaa dil ku xukuntay Donald Trump iyo Mohammed bin Salman ka dhaxal sugaha ka dalka Saudi Arabia. Algeria waxay hawadeeda ay ka xiratay duulimaadyada diyaaradaha dalka Morocco maxay dalalku isku qoomeen waanu eegi doonaa sidoo kale waxaanu ku faahfaahin doonaa generaalkii uu Turkigu ka adkaaday ee Liibiya oo aqbalay lagu xiray si uu madaxweyne uga noqdo dalkaasi ee Liibiya. Qaybaha dambe waxaanu ku falanqeyn doonaa warbixinteena xagee maraya khilaafka uu Francisco uu ku sheegay in Mareykanka iyo UK ay dhabarka ay ka toogteen. Ku soo dhawaada daawadayaal warbixinadeena kooban. Waxaanu ku bilaabi doonaa maxkamad ku taala dalka Yemen ayaa waxa ay ku xukuntay dil toogasho ahayd Mohammed bin Salman ka dhaxal sugaha ka Sacuudiga iyo Donald Trump ka madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka. Maxkamad fadhigeedu yahay dalka Yemen ayaa xukun dil ahayd ku riday 10 ruux ay ku jiraan madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump iyo dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Amir Mohammed bin Salman. Sidoo kale boqorka Sacuudiga Salman bin Abdulaziz Al Saud ayaa ka soo dhex muuqday liiska dadka lagu xukumay dilka toogashada ah oo lagu helay in ay mas'uul ka ahaayeen xasuuq 2 sano ka hor loo geystay arday reer Yemen ah. Garsooraha ayaa sheegay in xukunka uu ku riday 3 eedeysane iyagoo ka maqan maxkamadda oo ku taala gobolka Sanca ee dhacda dhinaca waqooyi galbeed ee dalka Yemen. Warbaahinta caalamiga ah oo ay u badan yihiin kuwa Carabta ayaa si weyn u hadalhayay wararka ku saabsan xukunkaasi oo lagu dhawaaqay maalinimadii shalay ahayd. Shakhsiyaadka xukunka lagu riday ayaa garsoorka maxkamaddu waxay ku sheegeen in lagu helay dambiye ay ku lug lahaayeen oo ah duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha xulafada ee Saudi Arabia sanadkii 2018 kuwa oo lagu beegsaday bas ay saarnaayeen caruur iskuuleed ahayd sida ay sheegtay wakaalada wararka ee Yemen ee Saba. Baska ardayda waday ayaa gantaal lagu dhuftay isagoo dhexmariyay suuq ku yaala magaalada Dahyan ee gobolka Sanca. 50 qof oo rayid ah oo caruur ay u badnaayeen ayaa ku dhintay halkaasi halka 80 kale ay ku dhaawacmeen. Marka laga tago Trump, boqor Salman iyo Mohammed bin Salman dadka kale ee ku jiray liiska shakhsiyaadka toogashada lagu xukumay waxa kale oo ku jiray madaxweynihii ee xukuumadda Riyadh taageerada ka haystay ee Yemen Abdi Rabb Mansour Hadi Amir Turki bin Bandar bin Abdurrahman Al Saud oo ka tirsan amiirada boqortooyada Sacuudiga. Xogayihii hore ee waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka James Mattis iyo sidoo kale saraakiil ka tirsanaa jiray dawladda Mareykanka iyo Yemen. Garsooraha xukunka ku dhawaaqay oo lagu magacaabo Riyad Al-Ruzami ayaa sheegay in dhammaan dadka dilka lagu xukumay sidoo kale laga doonayo in ay bixiyaan ganax lacageed oo dhan $10 bilyan oo dollarka Mareykanka taasi oo la siin doono ehelada dadka ku dhintay duqeynta. Go'aankan ka soo baxay maxkamadda ayaa ku soo aadaya xilli dhawaan 9 qof lagu fuliyay xukun dil toogasho ahayd oo ka dhacay dalkaasi Yemen. haddaan u fiirnana dalka Algeria iyo sidoo kale Morocco dawladda Algeria ayaa waxa ay ku dhawaaqday in hawadeeda ka xiratay duulimaadyada diyaaradaha ee ka imaanaya dalka Morocco. Golaha amniga ee dalka Algeria ayaa waxa ay go'aamiyeen in hawada dalkooda laga xiro dhammaanba diyaaradaha rayidka ah iyo kuwa military ee wadanka Morocco sida ay sheegtay madaxtooyada dalka Algeria waxa ka yar bil markii ay xiriirka diblomaasiyadeed u jirtay dalka dariska ay yihiin Morocco. Bayaanka ay soo saartay dawladda Algeria ayaa lagu sheegay in go'aankani uu yimid daandaansigii socday iyo sidoo kale dhaqamada cadaawada leh ee dhinaca Morocco ka imaanayay. Xiritaanka hawada ee Algeria ayaa sidoo kale waxa uu saameyn doonaa diyaarad kasta oo sidata number diiwaankeedu uu yahay dalka Morocco sida ay sheegtay madaxtooyada dalkaasi kadib kulankii golaha amniga qaranka ee wadankaasi yeesheen. Wakaalada wararka ee Reuters ayaa waxay qortay inaysan jirin jawaab rasmi ah oo ka soo baxday dhinaca Morocco waxaana ila ka tirsan diyaaradaha Royal Air Maroc ay sheegeen in xiritaankan hawada uu saameyn doono ilaa iyo 15 duulimaad oo toddobaadle ah oo isku xira Morocco, Tunisia, Turkiga iyo Masar. Ila wareedyo ayaa waxay ku tilmaamayaan xiriirkan mid qiimo weyn aan lahayn waxaana ay sheegeen in duulimaadyada uu saameyn doono taasi oo dib u dhac u keeni doonto xiriirka labada wadan.
Algeria ayaa dabayaaqadii bishii hore waxa ay go'aansatay inay xiriirka diblomaasiyadda u jirto Morocco iyadoo ku tilmaantay fal cadaawad leh oo ay uga imaanaya boqortooyadan waxaana Algeria ay tixraacisay hadal uu ergeyga Morocco oo New York uu ka sheegay in ay door bidayaan madax banaanida gobolka Kebele ee Algeria oo ay halkaasi ka doonayaan in la madax banaaneeyo gobolkaasi. wararkeena ayaanu ku sii jirnaa qaybihii dhaxayaan maraynaaye generaalka uu Turkigu ka adkaaday ee Liibiya ayaa waxa uu aqbalay shuruudo lagu xiray oo ah haddii uu madaxweyne doonayo in uu fuliyo generaalka hogaamiye kooxeedka ah ee Liibiya Khalifa Haftar ayaa qaatay tallaabo u suurtagelin karta inuu ka qayb galo tartanka doorashada xilka madaxtinimada ee la filayo in ay dhacdo bisha December ee sanadkan. Khalifa Haftar ayaa sheegay in uu ka tanaasuliyo doorkiisa dhinaca military sidaasina uu ku joojin doono dhammaanba waajibaadkii ciidanimo. Waxa uu muuqdaa in uu ka faa'iideysanayo shuruucda cusub ee imanka imaanaya. Dadka falanqeeya arrimaha Liibiya ayaa waxay sheegayaan in qabsoomidda doorashada ay shaki gelinayaan ismaandhaafka u dhaxeeya dhinacyada siyaasadda ee dalkaasi. Haftar oo doonaya in uu Liibiya uu ku qabsado ciidamo xoog leh oo taageero ka helaya Raashka iyo dalal kale oo ka tirsan Carabta ayaa la jabiyay kadib markii uu Turkigu uu la dagaalamay taasi oo keentay in Khalifa Haftar meesha laga saaro. markaana falanqayntii ayaanu eegi doonaa xagee ayuu maraya khilaafka Faransiisku oo ku sheegay in Mareykanka iyo UK ay dhabarka ay ka tooganayaan oo uu ku eedeeyay. Faransiiska iyo Mareykanka ayaa waxa ay dadaal ay u galeen sidii loo soo afjari lahaa khilaafka soo bilowday asbuucii hore iyadoo oo lagu dhawaaqay heshiiska dhinaca kuwaas ee u dhaxeeya Mareykanka, UK iyo Australia. Heshiiskan ayaa waxa ka carooday Faransiiska kadib markii meesha ay ka baxday heshiis qiimihiisu uu gaarayay 7 bilyan oo dollarka Mareykanka ah in si Australia loogu sameeyo gujisyo badda hoosteeda mara ah. Paris waxay sheegtay in ay ogaatay saacado uun ka hor shaacinta heshiiskaasi. Madaxweynayaasha Mareykanka iyo Faransiiska ayaa hadda soo saaraya bayaano wadajir ah si ay meesha ay uga saaraan xaaladda guud iyo sidoo kale murugta soo wajahday dalka Faransiiska. xaaladana lagu dejiyo wada tashiyo furan oo dhexmara xulafada. Joe Biden iyo Emmanuel Macron ayaa telefoonka ku wada hadlay nus saac Arbacadii. labada hogaamiye ayaa sidoo kale waxa ay ku kulmi doonaan Yurub dhamaadka bisha soo socota. carada Faransiiska waxa ay ahayd mid aad loo dareemay oo wasiirka gaashaandhigga Faransiiska ayaaba ku tilmaamay in dhabarka laga toogtay oo ay dhabarka ka toogteen Mareykanka, UK iyo sidoo kale Australia. safiirka Washington ayaa waxa uu hadda ku laaban doonaa booskiisii oo hore u joogay. Faransiiska ayaana waxa uu qaatay tallaabo aan horey loo arag oo ah in uu u yeertay danjirayaashiisii u fadhiyay wadamada Australia iyo Mareykanka. Madaxweyne Biden ayaa xaqiijiyay muhiimadda ay leedahay in Faransiiska iyo Yurub ay ku lug yeeshaan gobolka Indo-Pacific. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean Le Drian ayaa waxa filayaa in ay Khamiista maanta ah ay yeeshaan kulamo laba geesood ah sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan Mareykanka. Isbahaysiga ayaa loo yaqaanaa kuwaas waxaana toddobaadka ka hor ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, ra'iisul wasaaraha UK Boris Johnson iyo dhigooda Australia Scott Morrison. heshiiskan ayaa sidoo kale dalalkan isbahaystay ku wadaagayaan awoodaha internetka iyo teknoolajiyada kale. ayaa la taliyaha ammaanka ee qaranka ee UK Stephen Levegraf waxa uu ku tilmaamay in uu muujinayo isbedel istiraatiijiyadeed oo aad u weyn. waxaa loo micneeyay in Australia ay noqon doonto dalka toddobaad ee dunida ugu adeegsiga badan quwadaha nuclearka ku shaqeeya. Levegraf waxa uu sheegay in heshiiskani uu yahay iskaashi awoodeed oo ugu muhiimsan ee ka dhaca meel dunida kamid ah 60kii sano ee la soo dhaafay. Shiinaha ayaa dhanka kale wuxuu ku eedeeyay isbahaysiga in ay ka fikirayaan dagaal qabow kaasi oo dhici karaan dhibaatooyin ka imaada dhinacyada. wargeyska dalka Shiinaha laga leeyahay ee lagu magacaabo Global Times ayaa waxa uu ka digay soo safrida ciidan isaga oo intaasi raaciyay in ciidamada Australia ay u muuqdaan in ay noqon doonaan kuwa ugu horeeya ee ku dhinta iska caabinta dhanka Shiinaha ka iman karta. waxaana uu sheegay in tani ay tahay cawaaqib xumo ay wajihi karaan wadamadan inkasta oo uusan sheegin in Shiinuhu wadanka uu isleeyahay waa dagaal ayuu kugu soo qaadi doonaa. daawadeelintaasi ay ku dhan yihiin wararkii caalamka ee nabadgelyo.